الرحمن الرحيم. ماتها آية هاي معين ثلاثة إيش سبتمبر نايت هايله شركة جن شرائنا كل قوانين حفيز كوضني حرتي سكوا كأول كنتي وجدت أنا قوانين حوي إن كان على نبض قلب وكنت هاجن تمرين سمالان هبا وضم بيان قعدوين كي بيلا دايم مرور خمسة سنين تدوات اللي بدنا بيه كتاجني سمالان خاصة هنقول بيت سيدنا الله سبحانه أما يوم تاريخ الكون هي حسب الكلمية ما نطرية يقولون ذيك كي بدأ في السيرانية سيرعنوا حكين كل هي صفاتي وكفوي كرسي جماعة وصل رأي ضلك كتليان وحياة هاي الحارن سمالنا حكومة مهلا هل حاراني نريك حلال مرشة كل يوم كرسي كفوي بيجي ضدكي ما تضعها سفر كهاي تشكل الأولى يا فرتين هاي القوعي أيا كمل هاي ترنشروي كي وصي معي سو أفضل كرسي ضدها وصل ما أنت تيجي هذي بالأوضة حياتها لوكايا أو حكومته ما قاعد يوضح لي وحني وقت هاي شرعي وضعنا شرمه دماغ على هذا الوقت ما يحيط لوكايا ما قاعد يتشان يلا وضحي أمين قرني واحد مقاشين إيش حافظي اللي هو مرين هبابي وقوية هرجيسة كورم اللي هي نقطة وقوية هرجيسة بس الجغرافيا في الصومال الآن أيوة حنقضي هاشي كل بودة اللي ورد شيء اللي جاب بودي تميل اللي جاب بودي ميل اللي جاب بودي هرجيسة كورم اللي هي تميتي ويندرها بريس أما أساسية في الصومال الآن وحكوا كده الصومال الآن كيف رئيسانتها هاي بريت سومالنا بروتكتريت waxaan ku kala gaar naqsanayna dunida traffic raadinayna iyo midnimada Soomaaliya waxa asaas ah xuduudihii 60kii oo nooga Ingiriisku ma waxay noqotay arrintu la jiifiyana banaan la joojiyana banaan 60ka marka ixtiraaf iyo Soomaaliya laga sheekeynayna 60kii oo kala qabsanayna kolka kalena miyay isku boobayna 1960 loohaya waxa lagu soo ururinayay ciidan fara badan bay xukuumaddu ku soo guuleysay habeenadan u dambeeyay waxaan loo sheegay tiro kun askari kor dhaafaysa in jumhuriyadda Soomaaliya ciidankii kala duwanaa la isku keenay oo haya waxaan leenahay loohaya ciidan ma baahna ee caqli iyo cadaalad u baahan tahay reer odan waxa leeyahay ninka ina bixi ee maanta musharaxnimada isagoo doonaya dhulkiini idinku haysta ee damac kaga jiro ee magacyada waqooyiga Hargeysa loo baxay bari markuu kursiga dalka ugu sareeyo fulo maxay idinka filaysaa ayaan darrada heshay reerkan jaarkan hay Soomaaliland wadaleena hay walaalihii saar waxa kooka halkoo ka kacay samataliskii weynaa rubacdaagi odaygii nabadda Soomaaliland Sheekh Ibrahim Sheekh Yusuf Sheekh Madar ayaa waxa soo buuxiyay sabisti oo dagaal oobe kiciye iyo qasab weyn waa ayaan darro halkii samatalisku ka tani jireen maanta in sabisti ka hadlo waxaa la heeraa كلمية هي مصبح والدمير يكتب كلمية هو التاجري موسى هو الديني إذا ما ولا غلط أما وضعات هو موسى وضية هي المصبح أما الدول خوضانية موسى يحس بجسمه تسع الدين يا ودين شعب جهل سومالان صراحة هي الوضع تعرف من الشرقية دول كمان تبقى يسنينه إلهي بقى بخينا ضاري نبى ماشي كهبارين بلا هيدشين هرجيسة إلهي بقى بلابط كذي ما ترينه برضو صبي منه تابعني وإحنا قلنا سدوا إلهي وضاري أيام ونكسنين إلهي هو بيبي بدشي هل كهل الإيمان سدوا تلك السماء لاني خيرات كيسوي نجيب بديهم استحريري حي استشيد كي يشارك الدولة دي الشعب هو حيالين هكونت الحكومة ما تتلنا صاير والله أنتي واحد الشعب غير السماء لان قال هذا في قلبك قال سكوي ديني يلو تبي مدحوينك حقيقي كي جمهورية الصومال الآن عبد الرحمن سيلعي ماشي تشاني عربي عبد الرحمن سيلعي ومدحوينك حقيقي كان جمهورية الصومال الآن مرة بعضنا وانيك سوتش جدا قالنا قلبك أمسنانتي سرنتي شعب غير الصومال الآن وحيتو سيصار إنه هالكية ويعرفت حتى تراها السكوت علامة الرضا أمسنانتو وهذا يحاشو سيلعي
wuxuu aad iyo aad ugu dhigi jiray gobolkan awdal iyo sida lagu oran jiray xukuumadda haleyda iyo haleyda mamari madaxweyne ku-xigeenku mararka qaar wuxuu iloogaa kalaas caanood fadhiya iyo ka ceerigaaba fadhiya iyo ka sool fadhiya intaba inuu isagu yahay madaxweyne ku-xigeen gobolka awdal haleyda haddii xogeeya la magacaabay haleyda haddii wax bosishanada ugu hooseeya ay madaxweyne ku-xigeenku ku dagaalamay aniga ayaa haleyda mamari madaxweyne ku-xigeenku dee berigii hore waa burdoonaayo qandaraasyada waaweyn buu qaadan jiray sida kii guriga martida ee maanta qabyada ee $380,000 ku soo qaatay ee ninkii adeerkii u dhiibay maanta fadhiistay qandaraaska ku soo qaatay iyo karantii uu kiriyay buuraha macalinta qaniga ku ay siimoodiyo wuxuu kaga soo celin gobolka iibinta ceelasha milixda ee degmada Toqoshi maanta wuxuu marayaa madaxweyne ku-xigeenku inuu baabuur intuu soo iibsado uu talaalka lagu dareera waa nusqaaniya ayaa daro qaranka Soomaaliland ku soo habsatay madaxweyne ku-xigeenka waxaa leenahay hankaagu intaa ka sarreeyo qaranka Soomaaliland oo wakiil ka tahay madaxweyne ku-xigeen tahay waxaa tahay ku-simaha madaxweynaha kaalintaadii qaado tolka hadday gardaran yihiinna qabo haddii laga gardaran yahayna oo heli isna intaasaan leehay waxaan jeclaan lahaa taasina intaas ka baxo oo aan ka hadlo arrin aad iyo aad shacbigu u tabayeen oo degmada Boorama ku salaysan runtii waxaa maanta afar-jiirsaday golaha deegaanka ee degmada Boorama 4 sanadood hal sano horay intii sharciga ahayd ee aynu dooranay maayarka iyo maayarka maanta talada dalka haya ee ka talinaya degmada Boorama waa kuwii ugu liitay ee soo mara degmada Boorama waajibaadkii shaqo ee ay ugu horeysa kala fadhiyeen golaha deegaanka ee degmada Boorama weli muu qaban maayarka iyo ku-xigeenka maanta talada haya shaqo kalena hadalkayga wadaa kulamadii guddida joogtada oo meesha ka baxday ama baaqsaday tala wadaagii guddida fulinta ay la lahayd dowladda hoose guddida fulinta markaan leeyahay waa maayarka ku-xigeenka iyo xogeyaha oo runtii ay tahay si joogtaa inay kulmaan waajibaadka shaqada runtii ay ku qeexan tahay xeer number 23 taana maayar ku-xigeenku waa u baalmareen maayarka iyo maayar ku-xigeenku way baalmareen waanay ka weecdeen hawl socodsiintii iyo adeegyadii bulshada loo hayay dee xafiisyadii baba xidhan oo maayarkii maayar ku-xigeenkii weli haawanayeen iyo xogayihii maxay hawlay socotaa ka warhayn la'aanta shaqooyinkii socday oo u baahnaa in wada waqti kasta shaqada ka socon meelaha dowladda hoose wadooyinkii magaalada Boorama waxay noqdeen wixii dadku dhisteen wax burburay wixii kalena wax xidhmay maanta meedka meel la mariyo ee xaafadaha qaar ah oo nusqaani ay daro dowladda hoose degmada Boorama ee uu garwadeenkii yahay maayarmeedhan ay runtii ku kusatay wax qabad la'aan guud oo ka taagan dowladda hoose degmada Boorama hay'adin xumo magaalada gidaafada dhan walba cayaartay shirkadii loo saaray arrintaasina runtii markaan la xiriiray ay runtii ka gaabsadeen arrinta ka hadlaan laakiin ay u muuqato dowladda hoose degmada Boorama inay lacagtii kabka ahayd ay siinaysay aanay siin muddo sanad ku dhow taasina maayarku uu eedeeda leeyahay miisaaniyaddii 2015-2016 aan lagu shaqaynin waxaa ka mid ahaa waxyaabihii ku jiray miisaaniyaddii dowladda hoose ee sanadkan in laga dhiso xaafadda hayaya in biyogeli loo sameeyo maanta xaafaddaas waa bilaabiyo waa xaafad weyn oo magaalada markeed ku dhow waa bilaajisay waa bilaadaryeel miisaaniyaddoodii bay ku jirtay maayarku meelu geeyey la garan maayo waxaa ku jirtay saldhigyo booliisii laga sameeyey degmada Boon iyo degmada Iranka iyagana waxay ku jireen miisaaniyaddii la ansixiyay sanadkan iyadana ilaa imika oo aynu marayno bishii Sebtembar oo dabayaaqaa waxa laga qabtay ma jirto magaalada waxa uu dhaafiyay meesha martaba qashin baad ku arkaysaa waxyaabaha aasaaska oo ay ka mid ahay dowladda hoose shaqada ugu weyn yahay tiina waxay moodaa in meesha ka baxday magaaladii gidaafad wada xumo hay'adin xumo horumar la'aan tobalaankii magaalada meesha haba yaraatay ka baxay nin walba meesha doono meesha soo gaadho ayuu degayaa oo laga iibinayaa oo maayarku ka iibinayaa maayarku asxin waa yandaro golaha deegaanka ee degmada Boorama dardaaran iyo fariimo fara badan baan hawada maray maanta si waxa leenahay waxaad haysataan idin haray waa hal sano 4 sano maanta idin buuxsatay sanad baa idin haray nima dhalinyaro aad ugu haweenay batii bal aanada tibada la qabay maayarka iyo ku-xigeenka kici kari waayay ee fadhiidka noqday sanadka hadday isdaafin weydaan oo ay keeni weydaan qaar caafimaad oo dadka loo danbanayo shaqeynaya oo damiir leh waxay idin hubay ku sii jiri doontaan halkii dhalinyarada loo qabay oo waxay noqon doontaa dhalinyarada raba in laga xanaaqo in xilal loo dhiibo waxay idinku dadaashaan ilmaha reeyaal sanadka idin haray inay dadkii noo shaqeysaan
عدة وين فلتها أتكلم عن إنسان ما يكلم عن إنسان ما يكلم عن إنسان أنت نسكت أفتان هايبت اللي وحياها كلا كده ورا إنسان waxay ku soo xulataan kartini sanadka wixii afarta sano inaga baaqsaday idin qabta magaciina la badbaadiyo haddii kalena eedaasi si weyn baad la yeelanaysaan waxaan shirkiga jaraa'id ku soo gabagabeynaya fariin aan u dirayo shacbiga reer Soomaaliland guud ahaan nabadda iyo horumarka jecel oo aan leeyahay dhammaanteen aan ka qayb qaadano sidaynu u waqtiin lahayn timaanka colaadada xukuumadda goboleedka iyo madaxweyne Siraayo Musabbix Cabdiraxmaan Saylici ay ka wadaan degmada Luqaya gobolka Awdal نبضنا نقول فلان نصيبنا إنه نبضنا إلى عشرنا على ذي بقول نتيجة الكمرة شو تذكر السؤال الأنواع إن يأتي ذيك إنه ودينه سدي له هي نورد جروك إنه كل تشي